maanta waxaan ka hadlaynaa 40 qof ee ugu caansanaa jilayaasha Hindiya kuwaas oo ugu dambeyntii geeriyooday ilaa sanadkan 2023 ay sii dhamaanayo. aan ku bilaabno Dilip Kumar oo geeriyooday 2021 odagan filmaan badan ayaan ku arkay aniga wuxuuna jiray 98 sano. Sushant Singh Rajput oo geeriyooday 2020 34 jir ayuu ahaa. dilkiisana inta badan waxa lagu eedeynaa inuu isdilay iyo inuu ka dambeeyay Salman Khan iyo Adit Banjoli. Rishi Kapoor oo asagana geeriyooday 2020 67 jir ayuu ahaa wuxuuna noqday Father of Love of India. Irfan Khan oo asagana geeriyooday 2020 53 jir ayuu ahaa wuxuuna ahaa actor Muslim ah. waxaan ku xasuustaa filimkii loogu yeeray Riso ee lagu xiri jiray bukaska taleefanka dhexdiisa. sidoo kale Fuju Koite ayaa dhintay 2019 77 jir asagoo ahaa. waa waray rugcadaaga caanka ah Qadar Khan ayaa dhintay 2018 81 sano waa uu jiray. ninkan inaba caadi ma ahayn. waxaan ku xasuustaa filimkii laba caldheer goori ee shactirada badnaa laadir hadin shactiro la hadin aabaha hadin dhankasta waa laga dhisaa laakiin ugu dambeyn waa uu geeriyooday. Neeraj Vora asagana wuxuu geeriyooday 2017 54 jir ayuuna ahaa. sidoo kale Shashi Kapoor wuxuu geeriyooday 2017 79 jir ayuuna ahaa. geeridii ku afduqnimo ama ku dhaafeen ugu dambeyn uu geeriyooday asaga. Tom Alter asagana wuxuu geeriyooday 2017 67 sano jirna uu ahaa. Inter Kumar wuxuu dhintay 2017 43 sano jir ayuu ahaa. ninkan filmantiisa waxaan ku xasuustaa filimkii Salman Khan iyo asaga laadarnimada uu la keenay iyo filimkiisii ugu horeeyay oo ahaa cunugii yariiska ee Kishan iyo sidoo kale filimkii Baji inaba caadi ma sanayn. sidoo kale Vinod Khanna wuxuu geeriyooday 2017 70 sano jir ayuu ahaa. ninkan waxaa loo yaqaanaa Mastana waana Akshay Khan aabihiis. rugcadaagii Om Puri asagana wuxuu dhintay 2017 66 sano jir ayuu ahaa. Soomaalida wuxuu taqaanaa Isbatoora Khan. Razak Khan ninkan oo Soomaalida u taqaana Kitara ayaa dhintay 2016 asagoo ah 65 sano jir. Saeed Jafri ayaa dhintay 2015 asagoo 86 sano jir ah. waxaan ku xasuustaa filimkii ahaa Maala Xaqaaga Dhacso. sidoo kale Devan Farma wuxuu dhintay 2014 77 sano jir ayuuna ahaa. Sadashif Amra Bukar ninkan waxaa loo yaqaanaa Leeb wuxuu dhintay 2014 asagoo 64 sano jir ah. sidoo kale Faaruq Sheekhna wuxuu dhintay 2013 asagoo 65 sano jir ah. Rajesh Khanna asagana wuxuu dhintay 2012 wuxuuna jiray 69 sano. sidoo kale Dara Sen wuxuu dhintay 2012 asagoo jiro 83 sano. Dev Anand ninkan wuxuu dhintay 2011 88 sano asagoo jiro laakiin aniga waxaan ku xasuustaa filimkii Shanta Shareera ee loogu wici jiray Siid Xalla Qurbin. Shami Kapoor wuxuu dhintay 2011 79 sano asagoo jiro. Rami Reddy waa ahaa ama sana maxaa la jiray Shata Bidar ninkan wuxuu dhintay 2012 sano asagoo jiro. Mark Mohan oo Soomaalida u taqaan Food Cadde ninkan wuxuu dhintay 2012 72 sano waa uu jiray markaas. Nirmal Bandi oo Soomaalida u taqaan Baba sida filimkii waxaan ku xasuustaa Ozar oo kale iyo filim Govind oo la keenay filmana fara badan wuxuu dhintay 2012 wuxuuna jiray 47 sano. Furus Khan actor rugcada ah wuxuu dhintay 2009 69 jir ayuu ahaa waana fardiiqan aabihiis. Jack White wuxuu dhintay 2006 42 jir ayuuna ahaa waqtigaasi. Sunil Dutt wuxuu dhintay 2005 wuxuuna ahaa 75 sano jir waana sandaduud aabihiis. waxaan ku xasuustaa filimkii Naagin. rugcadaaga Amrish Puri Soomaalida u taqaana Saalimsi wuxuu dhintay 2005 72 sano jir asagoo ah. Mahir Shah wuxuu dhintay 2000 wuxuuna jiray 40 sano. in badan wuxuu ahaa askari meel adag. Amjad Khan wuxuu ahaa actor rugcadaa ah wuxuu dhintay 1992 51 jir asagoo ah. xitaa saxada filimada waxaa ku jiray wiilkiisa asagoo eeka kaasoo keenay filimkii Maala Xaqaaga Dhacso. Rajesh Shafeek asagana wuxuu dhintay 2016 wuxuuna jiray 66 sano. Bikram Jadkan Warbal wuxuu dhintay 2021 asagoo markaasi ahaa 52 jir.
Sindas Shukla wuxuu dhintay 2021 asagoo jiray 40 sano. Sidoo kale Shiv Kumarna wuxuu dhintay 2022 asagoo xilligaas jiray 62 sano. Salim Jos asagana wuxuu dhintay 2022 wuxuuna jiray 70 sano. ninkan Soomaalida in badan wuxuu u taqaanaa Alaalax kaasoo ku canbaxay filimkii Koyla iyo Maharaja. Mithila Tadroveldi asagana wuxuu geeriyooday 2022 wuxuuna jiray 67 sano. Jeetan Jaras Ashtari asagana wuxuu geeriyooday 2022 asagoo jiro 65 sano. Vikram Qoqale asagana wuxuu dhintay 2022 asagoo jiray 75 sano. Satish Kaushik wuxuu geeriyooday 2023 asagoo xilligaas jiray 66 sano. kan ugu dambeeyana waa Nitish Pandey wuxuu geeriyooday 2023 konton sano jir asagoo ah. waadna ku mahadsantahay daawashadaada. haddii aad ku cusub tahay channelkayga fadlan subscribe saar gambalaalkana furo adigoo mahadsan. haddii aad Facebook igala socotaan sidoo kale follow isoo dheh mahadsanid.